حالك الصومالي لان وحال عكرا كلا دران ظروفه باغيا بحيا دواغيا ييريا warka dhiilada xambaarsan ee dayaca adeegliidu keentay ayaa soo taraya cadaaladda cadceertay ayaa dheer weheshiga xabsiyada camiran waa mid ku lamaan xurriyad xoorin iyo caburin baa wehelisa waxaasi oo isbiirsaday waxa haatan ku biiray cudurka coronavirus oo loo garan og yahay COVID-19 iyo hoggaan xumidii madaxweyne bixi ee bulshada ku habsatay 2017 taasoo iyana loo garan og yahay Muuse 17 COVID tirada wehelisa waa xilligu dunida yimi oo ah 2019 halka bixi tirada dheer ee 17 kuna ay tahay xilligii uu qabar dhacay sidiisii talada fuulay ee 2017 haddaba duruufaha iyo waayaha cakiran ee hore bulshadu wehelka ugu ahay qaabkee labada dhibaato ee COVID-19 iyo Muuse 17 ay wada saameeyeen sida wax u socdaan kolka dadku sharaxayaan waxay ku suureeyaan waa siday tahay in cudurku ruuxda dadweynaha guranayo halka biixina dhaqaale dayn iyo dakana wixii dalka soo galaysna uu daldalay nafaha COVID-19 qaatay iyo dhaqaalaha iyo deeqaha Muuse 17 isna qaatay aynu eegno deeqdii Turkigu meeday diyaaradii siday deeqdii Imaaraadka deeqdii Shiinaha ku dar deeqdii Soomaaliya la soo marsiyay kadabagee deeqdii Qatar intaasoo diyaaradood ku rid dabadeed ku dar malaayiinta dollar ee ganacsatada ganacsiga ku haysata minabaligu iyaguna ugu deeqeen dadweynaha kadabagee qurba joogtu waxay dhiibtay ku dar iyana dhaqaalihii laga saaray khasnada dawladda ee 3 milyan aha intaasi 9 milyan ayay ku dhowdahay COVID-19 isagana dhugo sidoo xaal yahay waxa baraha bulshada yaacaya qaylada iyo baroorta ee helada dadka COVID-19 dayacay adeegliida isbitaalada uu ugu dilay Muusena ku daawaday burco meyd ku tarab hargeysa inta la magac garanayo intaan la aqoon baa ka badan boorama ciirciiraysa berbera xabaaluhu lamid ceeri gaabayo laascaanood iyagana weli weey miyiga warba looma hayo kala daran labada dhibaato ee shacabka Soomaaliland hay dhanka COVID-19 iyo xabaalaha waa la yaqiinsan yahay inaanay buuxsamin hase yeeshee su'aashu waxay dul taallaa sanduuqa dhanka biixina isana ma la midba